When you begin, it's always hard to start. It's common that you have. salaamullaahi calaykum asxaabta ku xiran janaal kusoo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal kale walaalkiin xasan cadle muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay isla breaking market haddaba annaga maxaana daba dhigay breaking market structure wow absolutely maanta waxaan qaatay trade kaasne waxa uu ku saabsanaa breaking market structure haddaba dadkii horay aanan u fahmin waxa uu yahay breaking market structure ama waxa loola jeedo breaking market structure waxa jira muuqaal kale oo aan uga soo hadalnay waxaad booqataa janaalka ma doonayo inaan waqti badan aan ku lumiyo haddaba sidee baan trade-kan uga faa'iideysanay trade-kan waxa uga faa'iideysanay suuqu waxa uu ahaa downtrend maadaama uu ahaa waxa uu sameeyay breaking market structure halka uu breaking market structure ka sameeyay waan ku cadeyn doonaa sidoo kale intoodna waxaan kugu calaamadeyn doonaa falaartaas markii aad ogaatid kadib waxaa kuu soo bixaysaa jihada suuqa aan u qaatay oo ah dhanka iyo uptrend muuqaalkan hadda aad daawanayso muuqaalkii ku horreeyay waxaan ku ogaanay suuq uptrend ahaa sida uu downtrend iskugu bedeli doono annagoo ka hadalnay breaking market structure-ka isla sidii suuqaas waxa uu sameynayay high low laakiin al-ultimo uu ku fashilmay inuu sameeyo high sidaa daraaddeed waxaan sugnay order block la soo jebiyey in dib loo sii testigareeyo si aan seel ugu soo qaadano jihadaas sidii aan rabnay ayaana suuqa ka dhacday oo waad ogeeteen inaan guulaysanay maantane waxaan idin wadaa isla sidaas oo kaleentood laakiin suuqu jihadiisu wuu ka duwan yahay markaan jihadiisu waa downtrend maxaa laga fiirinaa aan dhahnay waa inuu leeyahay low high maskaxdaada waa inay ku jirtaa ama buu ku qoro ama maskaxda ku hay mar walba suuqa markuu uptrend uu yahay waxaa laga sugayaa aan dhahay high low laakiin markuu suuqa uu downtrend uu yahay waxaa laga filanayaa low high qaacido kasto waxa ay leedahay loss sidaa daraaddeed markii aan qaadanaya trade-kan 99% waxa ay ahayd natiijadu in ay tahay win waxaa jirto 1% aan ku loosgareey karay suuqaasne haddii aan loosgareeyo ay dhacdaba inaan loosgareeyo waxay ahayd keliya in suuqu uu galo xaalad jahawareera consolidation ah bal aynu isla daawano sharaxaada muuqaalka insha allah waxaan isku soo noqon doonaa gabagabada muuqaalka waxaan u qaatay trade-kan dhanka iyo uptrend ayaan u qaatay sababtuna wax kala maahan haddii aan soo qaadano snap toolkeena halkan ayaan idinkugu sharxi doonaa halka uu ka sameeyey breaking market structure so sidaa daraaddeed waxaa ujeedaa inuu suuqan low uu sameeyey low high uu sameeyey waxaa laga rabaa marka inuu sameeyo low inuu sii sameeyo ayaa laga rabaa low halkan marka waxaa la rabay inuu sameeyo low laakiin ma uusan sameyn muxuu sameeyey marka waxa uu sameeyey higher high because highgii u dambeeyey waxaa ka sarreeya highgan hadda sidaa daraaddeed marka waxaa leenahay waxa uu sameeyey breaking market structure laakiin suuqa halkan waxa uu leeyahay weekiskan ma saameynaan weekiskan it means ma ka dhigna inuu xun yahay laakiin void ayay soo buuxinayeen weekiska okay saa ujeedo hadda waxaa soo galaya strong buyers haddii xilli salaadeed ay ku tahay oo muuqaalka uu kusoo gaaro waxaa kaa codsanaya inaad salaada ka hormariso daawashada muuqaalka aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay janaalkanne fadlan janaalka subscribe gareey sidoo kale intood asxaabtaada la sii wadaag muuqaalkan waa muuqaal iska free ah oo aan ugu talagalay ardada Soomaaliyeed inay waxun ay ka faa'iideystaan maadaama aynu nahay dad badankiiba ah dhalinyaro ah oo mar walba jecel inay horumar sameeyaan laakiin waxaa u baahan tahay inaad dadaal aad sameysaa wax oo easy kugu imaanayo dunidan ma jiraan okay aynu kusoo laabano trade-keena hadda waxaan joognaa 5 minutes waa fahanteena filaa marka uu sameynayo suuqu breaking market structure mar walbo ogow analyze-ka waxaa kasoo sameynaysaa 5 minutes ana hadda laba beera ii furan labadan beerna waxay kala yihiin OUD USD labadaba waa isku mid waa sababtuna wax kala maahan mid waxa waaye
5 minute time frame midka kalena waxaa waaye 1 minute time frame kaasoo aan mar walba aan ka qaato trade-ka aan rabo inaan ka trade gareeyo waqtigaas. Okay, hadda marka waxaa imaanaynaa dhanka ay 1 minute-kii ayaan usoo boqonnay bal aynu aragno marka suuqu waxa uu na siinayo labadan candle ee greenka ah haddii aan aragno waxaa hubanti ah oo 99% ah oo very sure ah in suuqan uu sii aadi doono uptrend. waxaa laga rabaa marka candlekan oo red candleka hadda soo socdo haddii uu imaado horizontal line-ka bluega agtiisa zonihiisa inaa usii qaadato power 4 strategy waana hubanti oo guuleysanaysa for sure waaye. marka laakiin aniga balaan ayaan leeyahay balaanka aan leeyahay waxa uu yahay only one trade inaan qaato maalintii oo dhanba waa kan. Oh my god, this is a good opportunity waa haddana oo aad ka qaadan karto dhanka iyo uptrend waa hubaal waad guuleysanaysaan. laakiin anaga waxaa okay waan guuleysanay sidaa daraaddeed waxaa laga rabaa inaad sii qaadatid dhanka iyo uptrend aad sii qaadatid for sure waaye inaad guuleysanaysid oo buyers xoogan ay soo galayaan. waxaan filayaa inaad wax badan aad ka fahantay muuqaalkan oo shalay cashirkii ahaa aad ku fahantay uptrend sida suuqa uu sameeyo break market structure. sidoo kale intood maantani aad fahantay low ama suuq down trend ah siduu ku sameynayo break market structure oo uga faa'iideysanaysid fursadaada 4 daqiiqo ee soo socota in aad saadaaliso suuqu wuxuu ku siin doono insha Allah. sidaa daraaddeed maanta wax badan ayaa fahantay. waxaan ku rajeynayaa horumar iyo baraare. wax allaala waxa aadan fahmin waxaad igu reebtaa commentiga si aan muuqaal uga soo sameeyo. waxaan ku rajeynayaa horumar iyo baraare laakiin ha isdhihin wiilkan waa uu guuleystay lacag badan oo suuqan ka shaqeeya. maya lacag badan suuqan ma ka sameeyo laakiin aniga alxamdulillah waa isku kalsoonahay nafteydana waan aaminsanahay. sidaa daraaddeed win ratio-gaygu waa wuxuu u dhexeeyaa 70 ilaa 80% ayuu win ratio u dhexeeyaa. marka waxaan ku rajeynayaa horumar iyo baraale. waxaan ahay Soomaaliga ugu horeeyay ee ku trade gareeya power 4 strategy khaasatan suuqan lagu magacaabo IQ option. marka waxaan ku rajeynayaa horumar iyo baraale. Peace out.